wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa waxa uu maanta xilalkii u kala wareejiyay wasiir ku-xigeenadii cusub ee dhawaan madaxweyne Ziilaayo u soo magacaabay wasaaraddaasi. Munaasabadani oo ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, wasiir ku-xigeenka cusub ee amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha, wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolada iyo degmooyinka, iyo mas'uuliyiintii hore xilalkaasi u hayay taliyayaasha ciidamada badda iyo asluubta iyo laanta socdaalka maayirka caasimadda Hargeysa, barasaabada gobolada dalka qaarkood, shaqaalaha wasaaraddaasi iyo weliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan. ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenadii hore ee la bedelay, iyagoo madashaasi ka soo jeediyey waxqabadadii kala duwan ee uu qabsoomay intii ay xilka hayeen, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa intaa kadib waxaa la yidhi munaasabad waliba maqaalkeeday leeday. maanta waxay wareejintii aan wareejinay labadeeda wasiiro hore aan ku wareejinay wasiirada cusub. waxaanu leeyahay marka koowaad soo dhawaada labadiina wasiirba ku soo dhawaada wasaaraddii arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland. aad iyo aad baan ku soo dhaweynay. mar labaad waxaan u mahadnaqayaa wasiirkayagii arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cadde ee sida wanaagsan aan u soo wada shaqaynay. markaan ka gudbo waxaan jecelahay runtii inaan mar labaad u mahadnaqo shaqaalaha wasaaradda ee ku sugnaa xarunta wasaaradda oo ahayd halkan aynu fadhino ama meesha hadda xafiiskeennu hore kasoo kale cusub yahay. aan muddo badan soo wada shaqaynay iyo dhammaanba shaqaalahan ka soo wada shaqaynay iyaga laftooda wasaaradda ee ku kala sugan gobolada, hay-adaha caalamiga, inta halka fadhiday inta maqanba waan muddo dheer soo wada shaqaynay. waxaan jecelahay iyaga inaan mar labaad aan salaamo. waxaa iyaguna dhinacooda kelmado kooban ka yidhi wasiir ku-xigeenada cusub ee xilalka wasaaraddaasi la wareegay, iyagoo madashaasi ka ballan qaaday in ay shaqada halkaasi ka sii wadi doonaan, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waa xaflad xil wareejin ah. xilna wax sahlan maaha, waa ammaano, waa wax lagu wareejinayo. lama hambaliyeeyo wax la yidhahdaa ilaahay idin fududeeyo. waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ee noo igmaday inaanu xilkaasi uga wakiil noqono. waxaan midakale ka codsanaynaa madaxda iyo wasiirku batut bay leeyihiin dadka madaxdeena oo marti inaad noo ducaysaan arrintaa ilaahay noo fududeeyo. inaad ku dadaali doonto, taana aad ku dadaali doonto. annagana xilka lanoo igmaday dee waan dadaalaynaa wixii suurtagala, wixii kale ee shaqaalaha iyo dee nagaga xidhan iyo arrimaha kalena idina waana caawin doontaa. waana idinku mahadcelinaya. asalaamu calaykum. dhanka kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maayirka caasimadda Hargeysa, barasaabka gobolka Maroodi Jeex, taliyaha laanta socdaalka, iyagoo dhammaantoodba uga mahadnaqay wasiir ku-xigeenadii hore sidii u habboonayd ee ula soo shaqeeyeen, ilaahayna uga baryay inuu shaqada u fududiyo wasiir ku-xigeenada cusub ee loo soo magacaabay xilalkaasi. labadii wasiir ku-xigeen ee hore ee wasaaradaha kale loo bedelay muddadii aan wada shaqaynaynay aad baan ugu mahadnaqayaa. gaar ahaan waxaan na xuseeyey garaad soofe, wasiir garaad soofe si fiican buu noola shaqeeyey. aad baan ugu mahad celinayaa intii aan wada shaqaynaynay. mudane wasiirayaal, labada wasiir ku-xigeen cusub waa soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay hambalyo. labadii wasiir ku-xigeen hore si fiican baan usoo wada shaqaynay. mudane wasiir waxay ahaayeen nina amnigu noo qaabilsanaa oo qaranka u qaabilsanaa, na wuxuu u qaabilsanaa degmooyinka. ilaahay waxaan ka baryaynaa meelaha fiican oo madaxweynuhu geeyay in ilaahay u barakeeyo, xilka u fududeeyo. waxaan xiriir la leenahay hay'adaha caalamiga oo laga shaqeeyo. waxaanu si toos ah warbixinta ugu soo gudbinaa wasaaradda dakhliga. gabagabadii waxaa madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde, isaguna dhankiisa uga mahadnaqay wasiir ku-xigeenadii hore sida habbooneed ay ula soo shaqaynayeen wasaaradda, isagoo dhanka kalena soo dhaweeyey wasiir ku-xigeenada cusub ee shaqadaasi loo soo magacaabay. maanta sidaa la sheegay waxaan joognaa inaynu u kala wareejino 4 wasiir ku-xigeen halkan hareerahayga fadhiya. inkastoo jiraan labadii jirana inay halka fadhiyaan oo yar aynu raacino, laakiin maanta may suuro gelin, way fadhiyaan. waxa weeye sidaa la sheegay, runtii waxaan jeclahay inaan halkan uga mahad celiyo labadii wasiir ku-xigeen ee hore oo runtii aan odhan karo waxay ahayn niman hawlkara, shaqayaqaana. qofka bini aadanka waxa laga eegaa
haddii uu leeyahay hanaan oo aragteenoo awrba awr ka horeeyuu socodkiisa leeyahay baa la yidhaahdaa. gabagabadii cali maxamed waran cadde wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan waxa uu si rasmiya xilalkii uga kala wareejiyey wasiir ku-xigeenadii hore iyo wasiir ku-xigeenada cusub ee uu dhowaan madaxweyne Ziilaayo u soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan. waa maxamed ismaaciil salaan, Somaliland Space Channel, Hargeysa.